kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka adaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisii ugu horeeyay ku tagay dalka Imaaraadka Carabta iyo sababaha la isku ah dalkeena oo ay doonayaan Imaaraadku inay ka saxiixdaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hambaliyadii ugu badneyd Soomaalida iyo caalamkuba u soo diraya dib qiimeyn lagu sameeyay awoodda ciidamada caalamka qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana fura si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku jira bilihii ugu horeeyay muddaxileedkiisa madaxweynenimo ayaa safarkii ugu horeeyay ee dalka dibadiisa oo ugu ambabaxay ku aadaya dalka Imaaraadka Carabta kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dowladda Imaaraadka Carabta kuna wajahan sidii labada dhinac ay ugu yeelan lahaayeen wadaxaajoodyo siyaasadeed ku wajahan mustaqbalka labada dal sida aan ogaanay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan safarka madaxweynaha waxaa ku wehelin doona xubno ka mid ah xubnaha baarlamaanka iyo wasiirada xilgaarsiinta ee hadda jooga waxaana yoolka ugu weyn u yahay sidii dowladda Imaaraadka Carabta loogala hadli lahaa dhaqaale kabid miisaaniyadeed oo si toos ah u hesho dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo fuliyo arrimaha miisaaniyadda ee Soomaaliya qaalahan sida la aaminsan yahay ma noqon doono mid si toos ah ugu dhaca qasnada dowladda marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda ee gudaha Soomaaliya dowladda Qatar ayaa 5 sano la soo dhaafay lagu eedeynayay inay taageero maaliyadeed oo ka baxsan kabka miisaaniyadda dowladda ay siinayso villa Soomaaliya iyo xukunkii Farmaajo taasoo inta badan loo adeegsaday arrimaha siyaasadda gudaha lacagta Imaaraadka Carabta hadda dowladda federaalka uga baahan tahayna waxaa la aaminsan yahay mid ay si toos ah u siin doonto madaxtooyada Soomaaliya si ay danaheeda siyaasadeed ee gudaha u fuliso laakiin Imaaraadka iyo Qatar sida ay dhaqaalaha u kala bixiyaan su'aalo badan ayaa dul hoganaya haddii dowladda Imaaraadka Carabta madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisu ay ka helaan kab miisaaniyadeed waxay ka maarmi doonaan faragelin lagu sameeyo miisaaniyadda dowladda taasoo u horseedi karta bixinta mushaaraadka shaqaalaha in adeegyada maaliyadda ay si toos ah u socdaan laakiin haddii taasi la waayo waxay ka dhignaanaysaa in mar kasta lagu mashquulo miisaaniyadda dowladda taasoo dib u dhac ku keeni karta hannaanka deyn cafinta ayay leeyihiin dad badan oo faallaynaya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha xiriirka labada dal ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ayaa dhaawacnaa sanooyinkii la soo dhaafay sabab la xiriirta in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka dooratay khilaafkii wadamada khaliijka u dhaxeeyay laakiin Imaaraadku waxay tilmaameen inay taasi ku qancin waxayna ku eedeynayeen xukunkii Farmaajo inuu si toos ah gacanta ugu hayay dowladda Qatar isla markaana saaxiib dhow la ahaa xiriirkaas xumaaday ee labada dal ayaa soo wanaagsanaanayay sanadkii la soo dhaafay Roble uu ku dhawaaqay in xiriirka labada dal uu caadiyeeyay safarana ku tagay Imaaraadka Carabta doonista sharciyeynta mashaariic horumarineed oo ay kula wareegto Imaaraadka Carabta qaar ka mid ah dekedaha dalka gaar ahaan siyaasashada Berbere iyo Boosaaso oo ahayd marinkii ugu horeeyay ee gacanta ku hayaan ilaa hadda ayaa ka mid ah waxyaabaha Imaaraadka Carabta ay doonayaan inay kala hadasho madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya casuumaadda ay u samaysay Berbere iyo Boosaaso waa laba dekedood oo muhiim ah marka laga hadlo dekedaha kulaalaya gacanka Carabeed waana goobaha Imaaraadka Carabta hadda gacanta ku hayaan Berbere waxay ku sameeyeen dib u dhis xoog leh iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeedo laakiin hannaanka saamiyadeeda loo qaybsaday cidda saameynta ku leh dowladda federaalka Soomaaliya marna kuma qanacsana sida muuqata laakiin Imaaraadka Carabta gaar ahaan shirkadda DP World ayaa horey uga soo horjeedsatay doonista dowladda federaalka ee hakinta mashaariicdaasi iyadoo sabab uga dhigtay inay heshiis la gashay Somaliland kaasna uu yahay midka sharciga ah dib u bilaabidda tababaro ciidamo hubeysan oo Imaaraadka Carabta ka abuurto Muqdisho gaar ahaan soo celinta xarumihii tababar caasimadda iyo ciidankii gacanta ku haysay ka mid ah ajendayaasha ee Imaaraadka Carabta ay doonayso si ciidanka loo bilaabo loona ururiyo waxay u baahan tahay ogolaansho laga helo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya in ciidankaasi lagu tababaro gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho ciidankaas ayaa la kala diray markii ay dowladda federaalku ku eedeysay in loo adeegsado dana siyaasadeed oo ka baxsan kuwa Soomaaliya lana joojiyay dhammaan macaamilkii Imaaraadka Carabta ee ciidankaasi la xidhiidhay Imaaraadku muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu janjeeraa xagga wadamada Shiinaha iyo Ruushka saameyn ayay ku yeelanaysaa dal kasta oo xidhiir la sameeya iyadoo Washington waan indhaha ku hayso dhaqdhaqaaqa Imaaraadka Carabta dana safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxyaabaha kala duwan ee dhinacyadu iska kaashan karaan ayaa aad looga filaya jako hooseysa filashada cid kasta maadaama Mareykanka si toos ah indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaq kasta oo Imaaraadka Carabtu ay ka sameynayaan wadamada geeska wadamada khaliijku
inta badan waxay ku loolamaan siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Cidda Soomaaliya saaxiib la noqotana waxay mar kasta noqotaa cidda ugu badan ee masraxa siyaasadda faa'iido siyaasadeed ka hesha, sida dowladda federaalka Soomaaliya ay loolankii Khaliijka ku weelayso ayaa hadda indhaha lagu hayaa, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh waxyaabaha la xidhiidha siyaasadda arrimaha dibadda iyo ku loolankeeda gudaha ee Soomaaliya ay tahay qodobada hortabinta leh oo uu dhowaan sheegay inuu si weyn indhaha ugu hayn doono. Dhanka kale, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa gurigiisa soo gaadhay arrimo xasaasi ah oo isugu jira mahadcelin iyo hambalyo, taasi oo ku aadan doorkii wanaagsanaa uu madaxweynuhu ka qaatay dhisidda ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh, kuwaas oo ka yaabsaday dunida, islamarkaana haatan adduunka u aqoonsaday Soomaaliya mar kale dib u la soo laabanayso magacii loo yaqiin jiray ciidankii loo yaqaana libaaxyada Afrika, maadaama hadda Soomaaliya ciidamo awood iyo tayo leh ay dhisatay. Dadaalkii ugu badnaana uu ku bixiyey xabiibul malaayiin. Siyaasiyiin badan oo wax magarata ah ayaa ku dhaliili jiray madaxweyne Farmaajo inuu ciidanku waqtiga ku bixiyey, kuwaasoo ku tilmaami jiray inuu doonayo inuu ku afgembiyo dalka, balse Farmaajo ayaa taasi ka dhigay waxba kama jiraan markii uu si nabad ah ku wareejiyey xilka, islamarkaana meel villada ka baxsan uu degay, taasi oo shacabku dhexda u xidheen, danqadeen, islamarkaana ololo loogu magac daray mahadsanid madaxweyne ay bilaabeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xabiibul malaayiin ayaa haata dareemaya farxad aad u sarreysa, waxaana xogo hoosoon la sheegayaan in madaxweynuhu uu la ilmeeyey fariin ka soo baxday wargeys caalami ah oo qiimeyn ku sameeyey awoodda iyo tayada ciidankeen, islamarkaana ay uga hormareen dalal badan oo caalami ah. Dhaqaale ahaan iyo awood ahaan bay naga sarreeyaa. 5 sano ee lasoo dhaafay waxay ahayd 5 sano oo ciidamadeenna fursad ay u helayeen sidii ay uga hormari lahaayeen dowlado badan oo shisheeye, islamarkaana awood iyo cudud ciidan uu madaxweyne Farmaajo kaga tegey taniya markii ay soo baxday warbixinta wargeyska Global, islamarkaana uu ku soo bandhigay awoodda military ee wadamada caalamka, taasoo muujisay in sanadkan 2022 Soomaaliya ay ka sarab martay dalka Iceland ee Yurub dhaca kana tirsan isbahaysiga NATO. Soomaaliya waxay qiimeynta ka soo gashay 139, Iceland ay soo tiigsatay kaalinta 142. Warbixintan oo dhinacyo kala duwan laga qiimeeyey ayaa soo jiidatay dad badan oo muddo fog la socday qiimeynta wadamada ee dhanka awoodda ciidanka. Taniya xilligaasi wixii ka dambeeyey madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed xabiibul malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa hoygiisa soo gaadhayay fariimo xasaasi ah oo uga imanaya wadamo badan Soomaaliya ka taageerayay dhisidda ciidamo awood leh. Hadda waxaa muuqanaya in madaxweyne Farmaajo dadaalkii 5 sano ee lasoo dhaafay uu bixiyey laga dareemaya adduunka intiisa kale, wuxuuna madaxweynuhu isu diyaarinayaa safar xasaasi ah inuu ugu tago goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada kale ee ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor safarkiisa qorsheynaya inuu casuumaad casho sharaf ah u sameeyo ciidamada qalabka sida saraakiishooda oo u badan dhalinyaro, kuwaasi oo dadaal iyo juhdiba ku bixinaya sidii ciidanka awoodooda sare ugu sii qaadi lahaayeen. Maahiirta nabad iyo nolol oo dhankooda isxilqaamay ayaa iska ururinaya lacago fara badan oo kuwaas oo ay doonayaan in ciidamada raashin iyo xoolaba ay ugu geeyaan goobaha ay ku sugan yihiin. Soomaaliya waxaa muuqanaya inay haatan magacii libaaxyada Afrika ay dib ula soo laabatay, waxaana siyaasiyiin badan oo dhaliili jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaalkii uu ku bixinayay ciidamada qalabka sida haata ay muujinayaan rajo wanaagsan oo Soomaaliya u sahli karta in kaalmaha hore ay ka soo gasho qiimeynta dhanka militariga wadamada caalamka. Madaxweynaha hadda villada jooga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna fariimaha loo diray kuwaasi oo u badan kuwa lagula dardaamayo madaxweynaha, islamarkaana loogu soo jeedinayo in ciidamada uusan niyad jabinin, islamarkaana uu dhiirigeliyo si awoodooda hore sii socoto, islamarkaana kaalmaha hore ay ka galaan qiimeynta awoodda militari ee wadamada caalamka. Waxaana Xasan Sheekh Maxamuud loogu baaqay in isbedel uunu ku sameynin saraakiisha firfircoon ee hogaaminaysa ciidamada qalabka sida ee u badan dhalinyarada. Xasan Sheekh Maxamuud lama oga sida uu ku aqbali doono baaqaasi loo soo jeedinayo, balse haatan waxa uu dareemayaa inuu Farmaajo uu qabtay wax la taaban karo ay ugu horeeyaan in ciidamadeena haatan ay soo hooyiyaan magac weyn, islamarkaana ay la soo laabtaan magacii lagu yiqiin jiray dalkeenna ee ahaa libaaxyada Geeska Afrika. La tus weyna ay ciidamaduna qorsheynayaan inay soo bandhigaan, kuwaas oo ay ugu dabaaldegayaan kaalimaha hore inay ka galaan qiimeynta
la sameeyey islamarkaana ku aadan awoodda ciidamada qalabka sida ee dalkeena. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xabiibul Malaayiin ayaana dareemaya haatan in sharaf iyo karaamo uu dalkan kaga tegey, wax lagu xasuusan karana uu u qabtay shacabka, ciidanka Soomaaliyeed iyo dalkaba. Ciidanka ayaa dareemaya rajo wanaagsan iyo fafaalo lagu soo hoyin karo Soomaaliya, waxaana hadda dalal badan oo cadow ku ah oo Kenya ugu horreyso ay dareemaysaa baqdin xooggan, maadaama Soomaaliya siday hore u sheegtayba awood ciidan oo ballaaran ay samaysanayso. Dhowrkii sane lasoo dhaafayna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadaal badan uu ku bixiyey arrintaasi. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyey, sidaas iyo nabadgelyo.